magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaa lagu soo gabagabeeyay tartanka kubadda cagta ee ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga wax ka barta kaasi oo sanadkiiba mar la qabto waxaana goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ciyaarta kama dambaysta ah ee tartanka waxaa isugu soo baxay laba kooxood oo ka socday magaalooyinka Karabuk iyo Kocaeli iyadoona ay guushu raacday kooxda ka socotay magaalada Karabuk oo koobka ku guuleysatay. gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga Shacraawi Maxamed Bashiir ayaa ka hadlay waxa uu ka dhigan yahay tartanka ciyaaruhu. isboortigu waa isdhexgal, waa wanaag, waa micnaha wax qurxiya, waa usluub wax wanaajiya. waxa kaloo sidoo kale meeshan calaamadaha lagu arkay aad micnaha dadka u la dhaceen Soomaali iyo ajnabiba koow ka ahaa asluubta wanaagsaneed, dhaqanka wanaagsanaa, isbarashadii, nin nugaal ka imaaday, nin marka ka imaaday meesha isku barteen, laascaano, garoowe, dhammaan meesha lagu wada maashaaxay, meesha in la walaalo lagu yahan lagu muujinay. safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Abdullaahi Caydiid iyo mas'uuliyiin ka socday dalka Turkiga ayaa kooxda koobka qaaday iyo ciyaartoydii kala guddoonsiiyay bilado iyo abaalmarino kala duwan. wuxuuna safiirku ku bogaadiyay ciyaar wanaagga ay soo bandhigeen ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka Turkiga wax ku barta. guuli laba nin kama wada farxiso. waxaa koobka ku guuleystay kooxdii ka socotay magaalada ama gobolka Karabuk oo sanadkii horena xilligan oo kale ku guuleysatay koobkii lagu qabtay magaalada Bursa. waxaan leeyahay hambalyo kooxihii dhammaan kooxihii ka soo qayb galay 12 ka ahaa. aad iyo aad baan halkan uga hambalyeynaya ciyaar wanaagga ay muujiyeen. runtii waxay ahayd tartan qurux badan oo goobjoog laga wada ahaa. si farxad ku soo dhamaaday. kooxuhu waxay muujiyeen ciyaar wanaag, asluub, isu dulqaadasho iyo xirfad heer sare ay muujiyeen. waxaan rajaynaynaa ardayda Soomaaliyeed Turkiga wax ku barata inay halka ka sii wadaan ciyaaraha, hagaajiyaan asluubta iyo ciyaar wanaagga iyo xirfadda ay soo bandhigayaan inay sii hagaajiyaan. marti badan oo culus baa maanta nala joogta. dhinacayga bidix waxaa taagan maamulka isbitaalka weyn ee Gulhane oo caafimaadka ah. isbitaalkaasi waa isbitaaladii xilligii 14 Oktoobar dhaawac halkan la keenay qaybta weyn ka qaatay. Axmed Abdulqaadir Ismaaciil Axmed Daruush magaalada Ankara.